Erling Haaland ayaa buugaagta taariikhda ka saaray astaanta Man United iyo Liverpool kadib rikoodhkii ugu dambeeyay ee uu sameeyay. Erling Haaland ayaa noqday ciyaartoygii abid ugu horeeyay ee Premier League ka dhaliyay 45 gool tartamada oo dhan hal xilli ciyaareed. Haaland ayaa dhigay wacdaro cajiib ah kadib markii uu dhaliyay gool kulankii ay Manchester City 3-0 kaga badisay Bayern Munich habeenkii Talaadada ee xalay. Kooxda Pep Guardiola ayaa si weyn u hogaamin doonta Bavaria kulanka lugta labaad ee wareegga sideed-dhamaadka Champions League toddobaadka dambe. Goolkii ugu dambeeyay ee Haaland ayaa la macno ah in uu haatan hal gool ka sare maray goolashii uu Mohamed Salah dhaliyay intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2017 ilaa 18. Waxa uu sidoo kale meesha ka saaray geesigii Manchester United Ruud van Nistelrooy kaasoo hore u dhaliyay goolashii Salah oo ahaa 44 gool xilli ciyaareedkii 2002 ilaa 2003. City ayaa hoggaanka ciyaarta ka qabatay Bayern iyadoo ugu mahad celinaysa Rodri oo dhaliyay goolkii wacnaa ee qaybtii hore ee ciyaarta. Haaland ayaa markan goolka labaad ka caawiyay Bernardo Silva isaga oo kubad cross ah oo cajiib ah u dhigay ka hor inta aanu John Stones caawin Norweyaanka ciyaartana ka dhigay 3-0. Goolkii Haaland wuxuu ahaa shaqo joojin caadi ah oo ugaarsadaha goolasha sameeyay. Haaland ayaa rikoor cajiib ah ka haysta Bayern, hadda waxa uu dhaliyay 6 gool, laakiin guushii City ee habeenkii Talaadada ayaa ahayd tii ugu horeysay ee uu ka hor yimaado kooxda Bavarian isku daygii 8aad. Haddii aysan dhicin wax cajiib ah marka ay City u safartay Germany 8 maalmood gudahooda, kooxda Guardiola ayaa wajihi doonta kooxda soo badisay kulanka Real Madrid iyo kooxda Frank Lampard ee Chelsea semifinalka. City ayaa guuldarro kala kulantay kooxda difaacanaysa horyaalka ee Real xilli ciyaareedkii hore isla heerkan oo kale.